kulanti wacan oo wanaagsan daawayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shirkii ka socday dalka Djibouti oo la soo gabagabeeyay dowladda Soomaaliya oo qodobo ka soo saartay madaxweynaha Djibouti oo ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirka Soomaaliya u fadhi doona dalka Djibouti qarax miino oo ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliya oo si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilaabanay shirkii ka socday dalka Djibouti ayaa waxa laga soo saaray qodobo iyada oo qodobo dhowrana mar laga soo saaray shirkaasi qodobada laga soo saaray shirkaasi waxa kamid ah in war la sii wada hadalada Soomaaliya in dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ay wada hadal ku dhimayeen khilaafka jiro iyaga loo xil saaro iyo waliba in dawladda Soomaaliya ay doorashada sii wado wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa faahfaahiyay qodobadii halkaas ka dhacay isagoo oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay shuruudo xodhigtay in wada hadal uu bilowdo Kenya waxa uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ay waragto in ay soo hubaynayso maleeshiyaad ka tirsan Jubbaland wasu hadalka u dhigay kuwaas oo ku sugan xadka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu taas ku taray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya in uu dawladda Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo darisa ayna wada heshiinayaan dad walaalaana ay yihiin waxa uu intaas ku daray in markasta loo baahan yahay inay heshiiyaan Soomaaliya iyo Kenya taasuna ay khasab ku tahay labada dawladood waxaana hadaladiisa kamid ahaa cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo igad dhaxdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama DS wasiirka ayaa waxa uu intaas sii raacay in dawladda Soomaaliya iyo Kenya ay sii wada doonaan wada hadalladooda waxa uu intaas ku daray inay yihiin dalad darisa oo dantu ay ka dhaxayso safiirka Soomaaliya oo fadhi doona dalka Djibouti ayaa waxa maanta warqadiisa aqoonsiga ka guddoomay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle Salaad Cali Jelle madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti ayaa waxa warqadiisa aqoonsiga ka guddoomay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo oo markii u horeysay ku hormaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Djibouti oo kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf kadibna markii dambe waxa loo galbiyay xarunta madaxtooyada iyadoo halkaas uu kula yeeshay warqadiisa aqoonsiga uu ka guddoomay safiirnimada madaxweynaha Djibouti ayaa waxa uu intaas ku daray in dalka Soomaaliya uu yahay dal ay daris yihiin waxa uu sheegay in dana badan ay ka dhaxayaan iyo waliba walaaltinimo Salaad Cali Jelle oo siyaasi hore uga soo shaqeeyay dawladda hore Soomaaliya ayaa waxa hadda loo magacaabay inuu noqdo safiirka Soomaaliya ee u fadhi doona dalka Djibouti waxaana uu hadda ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya dhinaca la talinta isagoo oo aad ugu caan ah Salaad Cali Jelle inuu ahaa nin madaxweynaha Soomaaliya aad uga difaaca marka ay mucaaradka Soomaaliya warbaahinta ka hadlaan qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe qarax ayaa waxa uu ka dhacay meel lagu shaahayo oo ku yaala xarunta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dad shacab ah xildhibaanka halkaas ku dhaawacay waxa lagu magacaabaa xildhibaan Maxamuud Cali Colaad halkaas oo loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Jowhar dad kale oo shacab ah ayaa halkaas ku dhaawacay waxaana la soo sheegayaa in ciidamada ammaanku halkaas ay baaritaana ka wadaan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya ana xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ayaa waxa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud Cabdiraxmaan Odawa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay u qabteen intii awoodeen deegaan doorasho laga soo doortay isagoo oo sheegay in dadka ay mahadsan yihiin sida ay u soo dhaweeyeen waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha magaalada Cadaado Cabdiraxmaan Tootoor isagoo oo sheegay in dadka Galgaduud ku dhaqan ama reer Galmudug ay u qabteen intii ay wadeen waxa uu sheegay wasiirka hore ee arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odawa in ay doonayaan in dalka Soomaaliya ay ka dhigaan nabad waxa uu sheegay in mar labaad loo baahan yahay in loogu celiyo dadkii wuxuu qabtay oo dadka reer Cadaadana ama dalka reer Galmudug ee ay soo doortay xildhibaanka uu sheegay in loo baahan yahay in dadka reer Galmudug gacmaha is qabsadaan waxa uu aad uga taxsiiyay
weeraradii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee saraakiisha badan lagu laayay guud ahaan warkii caalamka kala socotaan channelkan ku leenahay YouTube ka shaqo korwanaynta nabadgelyo